dowladda hadday meeshan imaato hadday arrin kale oo muhiim oo dadkan saamaynaysa laga hadlin safartan yaana imaana arrintaa loo imaada waxaa weeye inay dowladda Kenya lagu wareejiyo wixii ka dhisnaa xeradanayt laakiin waxaan leenahay haddaan laga hadlin dadka faraha ku jiraan safartan yaa la imaana wasiirka uu nala qaatay farintana asaga noo sheegi dadkii faraha galeen in laga bixiyo oo loo soo celiyo sharcigooda waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego hantidan meesha ku taalo biyo isbitaal wax kasta wuu jiraa laakiin dad ma degano waxaan rabnaa dowladda ka codsanaynaa meeshan inay dad la soo dejiyo inay loo furo mashruucyo laakiin haddana waxaan dhahnay mashruucyadaas waa inay borderka naloo furaa xadka noo dhexeeya Soomaaliya annaga wuu xiran yahay wax faa'iido oo saas ay ku xiranta ma leh xadka ha la furo dadka socdaalka ha loo sahlo intaasan u sheegnay